bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha kulmiye qodobada wararka saaka aynu idiin haynana waxaa ugu dooroon madaxweynaha Soomaaliya oo xalay kulan la qaatay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir saraakiisha ammaanka Hirshabeelle oo sheegay inay cabsi ka qabaan weerar al-shabaab ka geystaan magaalada Jowhar ee xarunta maamulkaasi xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Galmudug oo sheegay in caqabada ku horgudban yihiin hirgelinta heshiiska Galmudug iyo ahlu sunna mas'uuliyiinta ugu sarreeya maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo ka tacsiyeeyay xildhibaan iyo wasiir ka tirsanaa maamuladaasi oo ku geeriyooday gobolka Shabeellada Hoose wariye deeqa Cubayd Maxamuud oo la xanuunsanaysa dhaawac ka soo gaaray qaraxii hotel Naasa Hablood laba oo dalbaday gargaar caafimaad oo dalka dibaddiisa ah akhbaaraadka dibadda ee warka subaxaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dadka magaalada Gaza oo bilaabay mudaharaadyo waaweyn iyo mucaaradka Siiriya oo diiday inay ka baxaan bariga magaalada Quuta Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo. adna qaado Hormuud saaxiibkaan u qaad. markale subaxnimo wanaagsan waa subax khamiisa taariikhdu waxay ku beegan tahay 8 bisha February sanadkuna waa 2018 qodobada wararka aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan saaka waxa la diyaaraa wariyaheena Xafsa Khaliif Umar شعيب محمد علي آدي آدي mahadsan tahay bismillaahir rahmaanir rahiim soo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan madaxweynaha Soomaaliya ayaa xalay kulan la qaatay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir sida warkan uu ku faahfaahinayo Axmed Maxamed Ibraahim madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kulankan uu la qaatay xalay gudoonka gobolka Banaadir iyo gudoomiyaasha 17 degmo ee gobolkan ayaa mid xoog lagu saarayay amniga gobolkan Banaadir iyo sidii loo dirdirin lahaa 17 degmo gudoomiyaashooda ayaa laga dalbaday inay la shaqeeyaan ciidamada xasilinta caasimada ee ka shaqeynaya nabadda iyo xasilinta Muqdisho iyo inay tixgeliyaan amarada madaxda ka sareysa ciidamada xasilinta kulankan ayaa yimid kadib markii bariyaha dambe oo ay ka dhacayeen magaalada Muqdisho ee dowladkeeda falalid ku ah amniga iyadoo kulankan uu daba socdo kulamadii madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la qaadanayay taliyaasha ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya kuwaas oo laga dalbaday inay isku diyaariyaan dagaal ka dhan al-shabaab iyo waliba xasilinta magaalada tan caasimada ee Muqdisho saraakiisha ammaanka Hirshabeelle ayaa sheegay inay cabsi ka qabaan weeraro al-shabaab ay ka geystaan magaalada Jowhar ee xarunta maamulkaasi wariyaheena Yuusuf Abubakar oo inooga soo warrama maamulka Hirshabeelle aynu ka wareysanay maasantahay labaha ammaanka degmada Jowhar ayaa waxay sheegeen in ay jirto cabsi la xiriirta weerar ka yimaada al-shabaab oo ay ku soo qaadaan magaalada Jowhar cabsidaas waxay bilaabatay markii al-shabaab dagaalyahanno ka tirsan ay weerar ku qaadeen degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe jimciyana dhaaftay taas oo ay ugu soo gashay shabaab inay gudaha u galaan magaalada Balcad oo xarumihii maamulka uu ku shaqeynayay ay la wareegeen sidoo kalena xabsigii magaaladu ay ka sii daayeen dhammaan wixii maxaabiis ahaa ee ku xirnaa waxaa markaa laamaha amnigu ay sheegeen in al-shabaab hadda ay qorsheynayaan weerar inay kusoo qaadaan magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle sidoo kalena xarun u ah gobolka Shabeellaha Dhexe waxay sheegeen in ciidamada ammaanka heegan buuxa la geliyay isla markaana amniga ay si aad u sugayaan sidoo kale taliyaha qaybta 17aad ee ciidanka xoogga dalka Generaal Maxamed Aadan Koronto waxa uu sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka ay dejinayaan dhammaan magaalada meelaha markaas laga soo galo kuwa hadda meelaha ay degan yihiin markaas la sii xoojinayo waxaana uu sheegay in ciidamadu ay ka feejigan yihiin weerar al-shabaab ka yimaada al-shabaabna waxay sheegeen waxa uu sheegay in al-shabaab inay qorsheynayaan inay soo weeraraan magaalada Jowhar oo hadda xarun u ah dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Abubakar waa uu mahadsan yahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Galmudug ayaa sheegay in caqabado ay ku horgudban yihiin hirgelinta heshiiskii Galmudug iyo ahlu sunna
cabdiqani cabdilaahi ibraahin ayaa warkan dhammaystiraya. xildhibaan mahad cali cilmi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka galmudug oo waraysi siiyey idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in caqabado iyo dib u dhac la soo gudboonaadeen hirgelinta heshiiska dhowaan dhex maray maamulada galmudug iyo ahlu sunna. xildhibaan mahad cali cilmi ayaa waxa uu tilmaamay in madaxweynaha galmudug uu dhowaan gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug si uu u dhammaystiro ama uga qayb qaato hirgelinta qodobadii lagu heshiiyey, waxaana uu tilmaamay in aysan weli arrintaasi suurtogelin oo caqabado la soo gudboonaadeen. xildhibaanka ayaa hadalkiisa waxa uu ku daray in loo baahan yahay in talada maamulka galmudug laga qaybgeliyay dhammaan qeybaha shacabka islamarkaana ay ugu horeeyaan xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi. runtii waa ma qarsoona in madaxweynuhu wiigii hore uu wiigaan tegay dhuusamareeb ilaa haddana wax tilaabo hore loo qaaday aysan jirin. waa wax jira arrintaas marka caqabado tabasho dadkii galmudug ahaa masiirkooda ay taabanaysa arrintan heshiiska sidii loo maareyn lahaa tabasho ay qabaanaynan sabab u ah in ay waxba dhaqaaqi waayaan. si taa looga gudbana madaxweynuhu inuu si dowlad goboleed galmudug wax hay-ad dhisanayaad oo jirta oo fulina leh baarlamaanna leh istiraatiijiyadda ay heshiiskaana ku hirgelayo waa in maxaa la yidhaahdaa dadkii ay iska warsadaan reer galmudugaha. madaxweynuhuna uu hogaaminayo isaa hogaamineed looma diidana, laakiin talada ama dowladnimadu waa wax wadaaga oo dadku shaargareeyaan. ajandaha lasoo bandhigaa, ajandaha laga doodaa, wixii la isku afgartaana go-aan lagu gaaraa aakhirka ugu dambeeya. muddo haatan laga joogo 3 bilood ka hor 1 bishii Diseembar ee sanadkii hore ayaa heshiis ordhaca labada dhinac ee galmudug iyo ahlu sunna waxa ay ku gaareen dalka Jabuuti, iyadoo isla 6 bishaasi madaxtooyada Soomaaliya ay ku kala saxiixdeen heshiis rasmi ah. mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulada Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayaa u tacsiyeeyay xildhibaan iyo wasiir ka tirsan maamuladaasi oo ku geeriyooday gobolka Shabeellaha Hoose. Shucayb Maxamed Cali ayaa warkan faahfaahinaya. mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulada Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle ee Soomaaliya ayaa si isku mid uga tacsiyeeyay geeridii ku timid Allaha u naxariistay Cabduqaadir Cabdiraxmaan Baraf oo ahaa wasiir dowlihii wasaaradda ammaanka Koonfur Galbeed, sidoo kalena ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi, iyo sidoo kale xildhibaan Axmed Cabdi Faarax oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaanka ee maamulka Hirshabelle. war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed ayaa loogu tacsiyeeyay ehelada, qaraabada iyo sidoo kale shacabka Koonfur Galbeed iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Allaha u naxariistay Cabduqaadir Cabdiraxmaan Baraf, wasiir dowlihii wasaaradda ammaanka Koonfur Galbeed. sidoo kale war-saxaafadeed isna ka soo baxay madaxtooyada maamulka Hirshabelle ayaa loogu tacsiyeeyay dhammaanba labada xildhibaan iyo sidoo kale askartii wehlinaysay ee ku geeriyooday qaraxii shalay laga eegtay gaariga ay wateen meel duleedka ka ah degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Sheekh Cusmaan Barre Cali oo u warramay idaacaddan kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa ka tacsiyeyn kadib geerida ku timid mas-uuliyiintaasi. waxa uu ka warramay ujeedada socdaalkooda iyo waxa uu kala socdo qaabka ay u geeriyoodeen. markana inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. allah u naxariista xildhibaanada la tirsanay xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabelle iyo xildhibaanada Koonfur Galbeed. jannatul firdaws allah ka waraabiyo anaga dhammaanteen sabir iyo allah naga siiyo eheladiisa gaarka ay u geeriyoodeen iyo xildhibaanadii iyo baarlamaanadii ka geeriyoodeen. laba xildhibaan aad u firfircoon ay ahaayeen, waqtigooda ayaa dhamaaday, gacanka gardan ayaana dishay. waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu jannatul firdaws labada geeyo dembigooda ilaahay dhaafo, annagana dhibaashada ilaahay na fidmaynin. marka geerida waa xaq, qof kasta wuu dhimanayaa, laakiin ayaga waxaan isleeyahay waqtigooda ayaa dhamaaday. insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa ilaahay inaan ka baryaa inuu u naxariisto. fasax anaaga soo siiyo, fasax ayuu soo qaatay inuu shaqadaas wax kasoo qabto. hadda marka waa shaqadiisa uu gudanayay maxay ahayd halkaasi muxuu ahaayey dadkii deganaa eelkii waxyaabahaas uu soo booqanayay, walow ay meesha tahay Koonfur Galbeed, laakiin waa deegaankii dadkii wada deganaayeen oo muxuu ahaa ehelka ahaa. ninka xildhibaan kale xildhibaan Barafan Sare oo kiilad Baydhabo halkaas ay ku kulmeen shaqo kooda dhexeysay ay qabanayeen insha Allah oo laba dhinac ah. mas-uuliyadda qaraxii la bartilmaameedsaday gaariga ay ku socdeen xildhibaanadan ka kala tirsanaa baarlamaanka maamulada Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed, sidoo kalena mid ka mid ah uu ahaa wasiir dowlihii wasaaradda ammaanka Koonfur Galbeed, ayaa waxaa sheegtay dagaalamayaasha Al-Shabaab.
shucayb maxamed cali aad ayaad u mahadsan tahay. wariye deeqa cubeyd maxamuud oo la xanuunsanaysa dhaawac kasoo gaaray qaraxii hotel naasa hablood 2 ayaa ka dalbatay in gargaar caafimaad oo dibadda ah loo qaado. warkan waxaa faahfaahinaya Farxaan Maxamed Xuseen. wariye deeqa maxamuud cubeyd oo ka mid ahayd wariyaasha ka howlgala gobolka Shabeellada Hoose ayaa hadda ku xanuunsanaysa magaalada caasimadda ee Muqdisho kadib dhaawac ka soo gaaray qaraxii iyo weerarkii lagu qaaday hotelka naasa hablood 2 ee degmada Xamarweyne. wariye deeqa maxamuud cubeyd oo la hadashay idaacadda kulmiye ayaa sheegtay inay hadda wajahayso xaalad caafimaad oo liidato isla markaana ay ka cabsi qabto inay naafowdo. deeqa ayaa sheegtay inay tagtay isbitaallo badan oo ku yaala magaalada Muqdisho isla markaana loo sheegay in aan wax lagu qaban karin dalka gudihiisa. Alabta waxay dhaawantay qoobka kala gooska marka seediya igoy joog oo 3 meel ah way gaareen habeenkii oo kale xiliyada markay noqoto qabowga xanuun waxaan dareemaa gaar ilaa sinta dhammaan isbitaaladii aad gashay ma waxay ku sheegeen inaan waxba laga qaban karin gudaha dalka sidaasay sheegeen inaan waxba laga qaban karin gudaha dalka. wariye deeqa oo hadalkeeda sii wadato ayaa sheegtay in wasaaradda warfaafinta iyo ururka suxufiyiinta qaranka ee Nosej ay u balan qaadeen inay heli doonto caafimaad dalka dibadiisa balse ilaa hadda ay ka helin wax jawaab ah iyadoo ugu dambeyn ugu baaqday madaxda dawladda ugu sareysa inay wax u qabtaan. walahi horta rajadii aniga afar bi ku soo gaaray wali kama rajo dhigin oo aniga hadda maanta ayga ima dhihin halkaan ku soo keenay inta ka badan dadaalkina halkaan ku iyo wax uu ma qaban karnay ma aysan dhihin kulli waa dad sidaas ilaa wali dadaal ku jiro laakiin rajadii way soo dhaxday. waxaan jeclaanahay in aan ka codsanahay ayagana in si degdeg ah wax lagu qabto marka aan dhamaan ka codsanahay madaxda qaranka iyo Nosej dhamaan intii maxaladahay hay'adaha xiriir aan la sameynay mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo ururka suxufiyiinta qaranka ee Nosej si aan wax ugu weydiino sababaha ay u fulin laayeen balanqaadkooda ayaa inoo suurtagelin inaan haleelno mas'uuliyiintaas. waxaana lagu fadhiyaa ururada warbaahinta ee dalka ka jira iyo mas'uuliyiinta dalka u qaabilsan warbaahinta iyo wariyaasha inay gacan ka geystaan sidii wax loogu qaban lahaa gabadhaas wariyaha ah. dadka magaalada Gaza ayaa bilaabaya mudaharaadyo waaweyn. dadka Falastiin ku nool ee magaalada Gaza ayaa bilaabaya mudaharaad socon doona 6 toddobaad oo ka dhici doonta 10 magaalo oo ku dhow xuduudda Israa'iil. mudaharaadka waxa uu bilaaban doonaa 30 bisha Maaj. waxa ay ugu cabanayaan cadaadiska ay kala kulmayaan militariga Israa'iil. dad barakacay ayaa loo diiday in ay guryahoodii dib ugu laabtaan hay'adaha gargaarka oo codsaday in la fasaxo dadka qaxootiga ah. dadka Falastiin ee dhigaya mudaharaadyada ka dhanka ah Israa'iil ayaa la kulma isku dhacyo ay la galaan ciidamada ammaanka ee Israa'iil. rasaas nool ay mararka qaar ciidamada Yuhuudda u adeegsadaan dadka ka cabanaya cadaadiskooda. ugu dambeyntiina mucaaradka Syria ayaa diiday inay ka baxaan bariga magaalada Quuta. mucaaradka Syria ee ka dagaalamaya bariga Quuta ayaa diiday inay ka baxaan goobaha ay duqeymaha joogtada ah ku hayaan diyaaradaha Syria iyo kuwa Ruushka. afhayeen la hadlay TV-ga Al Jazeera ayaa sheegay in goobta ay ka sii dagaalami doonaan. mas'uuliyiin ka tirsan ciidamada Syria iyo Ruushka ee duqeynta Quuta ayaa sheegay in ay mucaaradka u ogolaanayaan meel ay ka badnaan si gargaarka looga ogolaado in ay tagaan meelaha ay dadku ku dhibaataysan yihiin. kooxaha mucaaradka Syria ayaa sheegay in ay ka sii dagaalami doonaan bariga Quuta waxayna sheegeen in ay haystaan qaybihii ugu muhiimsanaa magaalada iyagoo iska diiday wadooyinka loo soo bandhigay in ay ka baxaan. guud ahaan warka subax ee idaacadda kulmiye dhageystayaal waa inaga intaa. dhageystayaasha uu warkayaga dhaaf waxay dib kaga heli karaan kulmiyenews.com. sidoo kale dhageystayaasheena ku sugan magaalada dalka Mareykanka weeyaan Kai FM ayay naga dhageysan karaan. dhageystayaasheena ku sugan beledweynena radio wadani ayay toos inooga dhageysanayaan. dhageystayaasheena ku sugan galgaduudna radio cadaado ayay naga dhageysanayaan. dhageystayaasheena ku sugan gaalkacyana radio hayaan ayay naga dhageysan karaan. subax wanaagsan, nabadgelyo.